Dhalinyaradu waa laf-dhabarta bulshada. Waa xilliga ay riyooyinkoodu aad u badan yihiin, himilooyin sare ay leeyihiin, awooddooduna ay dhammaystiran tahay. Hase yeeshee, xaqiiqda jirta ayaa ah in dhalinyaro badan ay riyooyinkoodu ku aasaan qalbigooda, iyagoo aan marnaba isku dayin inay hirgeliyaan. Sababta ugu weyn ma aha karti la'aan, balse waa cabsi, kalsooni darro, iyo saameynta hadallada dadka kale. Waxaan si qoto dheer muuqaalkan ugu falanqeyn doonaa sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga cabsanayaan riyooyinkooda, sababta ay u aamini waayeen naftooda, doorka shakiga iyo dhaliilaha bulshada, waxa la gudboon dhalinyarada, iyo sida kalsoonida nafta loo dhiso si dhab ah loo dhiso. Ugu horreyn, kusoo dhawaada muuqaalkan. Nacfi Media ayaad iga daawanaysaan. Like-gareeya muuqaalkan, qaybta commentiga aragtidaada inoogu qor. Waa maxay cabsida dhalinyarada haysata? Cabsida dhalinyarada ma ahan mid hal nooc ah, balse waa cabsi isku dhafan oo ka timaada maskaxda, bulshada iyo waayo-aragnimo hore. Waana cabsi la xiriirta guuldarrada. Dhalinyaradu waxa ay rumaysan yihiin in haddii ay isku dayaan wax cusub ay ku fashilmayaan, taasina ay noqonayso dhammaadka sumcaddooda. Waxayna isweydiinayaan, haddii aan ku guuldareysto, maxay dadku igu oran doonaan? Haddii aan bilaabo oo aan ka haro, soo ceeb ma aha. Sidoo kale, waxyaabaha ugu weyn ee dhalinyarada inta badan ay isweydiinayaan waa fikradahaasi oo dhalinyaradu ka dhiga kuwo doorbida in waxba aysan sameyn halkii ay ku guuldareysan lahaayeen nolosha. Cabsida dhaleeceynta bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha dadka qaar ay aaminsan yihiin. Bulshadeena gaar ahaan tan Soomaaliyeed, hadalka dadka aad buu u culus yahay. Mararka qaar qofka riyoonayo waxaa lagu yiraahdaa arrintaasi adiga kuguma habboona, ama dadka waaweyn baa ku fashilmay, amaba waa waqti lumis. Dadka qaar ayaad niyad jab kala kulmaysaa marka aad ula tagto fikrad ama maskax aad doonayso in aad wax un ku beddesho. Hadalladan uu si joogto ah loo maqlo waxay dhalinyarada ku abuuraan cabsi ay ka qabaan in lagu qoslo ama la quursado. Sidoo kale waxaa jirta isbarbardhig. Baraha bulshada ayaa sii xoojiya cabsidan. Dhalinyaradu waxay arkaan dad kale oo da'yar haddana guulaystay, lacag leh, sumcad leh, markaasay naftoodu la barbardhigaan dadka kale iyagoo iska indhatiraya duruufaha kala duwan, taasoo keenta niyad jab iyo kalsooni darro. Dhinaca kale, haddii aan isla eegno bal kalsooni darrada iyo sababta dhalintu aysan isu aaminin amaba ay isu aamini laayihiin awooddooduna aysan ugu kalsooneen. Haddaba waxaa ka mid ah waxyaabaha kalsooni darradu ay ku timaado waa koritaan. Qofka ku koray jawi lagu canaanto mar walba, lagu yiraahdo adigu waxba ma kartid ama waxba ma samayn kartid, ama lagu yeero fikirkiisa ama lagu dhaleeceeyo. Qofka marka uu weynaado waxa uu wataa cod gudaha oo leh anigu ma awoodo. Waxaa ka mid ah waxyaabaha kale ee dhalintu ku kalifo kalsoonidoodu inay daciifto khibrado hore oo xanuun leh ama qisooyin markaasi iyo arrimo hore oo dhalintu markaasi iyagu qabsaday. Mararka qaar dhalinyaradu hal mar ayay isku dayaan wax ganacsi ama waxbarasho ama arrin kale. Haddii ay ku fashilmaan, fashilkaas ay u arkaan caddeyn ah inaysan awood lahayn halkii ay u arki lahaayeen cashar. Qaar ka mid ah dhalinyarada qiimahoodu waxay ku xiran yihiin ammaanta dadka, taageerada waalidka, ogolaanshaha bulshada. Haddii arrintaasi ay maqan yihiin, kalsoonidu waa ay burburtaa. Waxaa ka mid ah arrimaha kale aan isla eegi doono doorka shakiga iyo dhaliisha dadka kale uu ku leeyahay dhalinta Soomaaliyeed. Shakigu ma yimaado mar keliya, waxa uu si tartiib ah u galaa maskaxda. Waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka markaasi uu is yiraahdo anigu ma ku filanahay, hebel ma iga fiican yahay, haddii aan bilaabo ma dhammayn karaa. Haddii shakigan aan la xakameyn, wuxuu noqdaa xarig qofka ku xiran meeshiisa. Dhaliilaha noocyadooda kala duwan. Dhaliilaha dadku waxay noqon karaan dhaliil wax dhisaysa, tala sax oo ka caawin karta horumar, dhaliil burburinaysa, hadal niyad jabin oo aan markaasi xal wadanin. Dhalinyarada badankood ma kala saari karaan labadan. Taasina waxay keentaa in dhammaan dhaliilahan ay u qaataan si shakhsi ah. Sidoo kale, inay fahmaan in cabsidu ay tahay arrin dabiici ah. Qof walba oo guulaystay waa uu baqay, ama ganacsade ha noqdo, ama hal abuur ha noqdo, ama hogaamiye bulshadeed ha noqdo. Farqiga u dhexeeya guulaystaha iyo kan riyadiisa waaya waxaa ka mid ah mid baa tallaabo qaadaya isagoo baqaya, midna waa uu sugayaa ilaa cabsidu ay ka baaba'do
oo aysan weligeed markaasi ka baabi'aynin inay bilaabaan tallaabooyin yaryar. Riyo weyn laguma gaaro hal mar. Tusaale, halkii aad ka oran lahayd waxaan rabaa inaan caan noqdo, ku bilow maanta hal tallaabo si aad u qaado, taasi oo kuu suurtagelin karto in aad ka dhabayso fikirkaaga ama riyadaada. Guulaha yaryar ayaa dhisa kalsoonida waaweyn. Inay sidoo kale barteen fikirka kobaca. Fikirka kobaca wuxuu ku saleysan yahay guuldarro, wuxuu ku saleysan yahay khalad oo qofka uu wax ka baranayo. Guuldarrana cashar ayuu ka baranayaa, sidoo kale dhib ayuu ku saleysan yahay. Marka hore qofka uu rafaadaya, guusha dib ayay ka timaadaa. Qofka sidaasi u fikira ma burburo marka uu fashilmo. Sidee loogu falceliyaa dhaliilaha iyo hadallada dadka? Kala saar, isweydii, qofkani ma iga doonayaa wanaag? Hadalkan xal ma leeyahay? Haddii jawaabtu maya ay tahay, ha u ogolaanin in qalbigaaga arrimahaasi ay degaan. Waxaad dhistaa kalsoonida gudaha ka timaado. Haddii aad adigu isku kalsoon tahay, hadalka dadka kuma jebinayo, shakiga dib kuma celinayo. Kalsoonida dhabta ma ahan midda dadka ka timaada ee waa midda nafta ka timaada. Ku xirnow dadka ku dhiirigeliya. Hal qof oo kugu dhaha waad awoodaa ayaa ka qiimo badan 10 qof oo ku dhaleeceeya. Sidaa daraadeed waxa la doonayaa in mar walba aad maciinbido dadka aad ku aaminsan ee ku dhiirigelinaya. Dhalinyarada maanta ma aha kuwo karti la'aan ah, balse waa kuwo cabsi lagu beeray, kalsoonidii hoos ay u dhacday, riyooyinkoodii laga shaki geliyay. Haddii dhalinyaradu ay fahmaan in cabsidu ay tahay arrin caadi ah, guuldarradu ay tahay cashar, dhaliiluhuna aysan ahayn xukun kama dambeys ah, markaas ay awood u yeelanayaan inay jebiyaan xayndaabka maskaxda una dhaqaaqaan riyooyinkooda. Qofka riyadiisa aamina, inkastoo uu baqayo, ugu dambeyn waa uu ka adkaanayaa kan aan weligiis isku dayin. Sidaa daraadeed waxaa la doonayaa dhalintu in awoodahooda ay mar walba aaminaan, isla markaana ay isku kalsoonaadaan. Cilmi baarisyo ayaa muujinaya in kalsoonidu ay ka timaado guulo yaryar oo la gaaro iyo in laga barto cashar khaladaadkii halkii laga baqi lahaa. Fahamka iyo aqbalidda baqdinta. Qofka waxa uu qabi karaa baqdin iyo shaki. Tallaabada ugu horreysa ee guusha waa in la aqbalo in baqdintu aysan calaamad u ahayn daciifnimo, balse ay tahay fursad lagu koro. Tani waxay dhalinyarada ka caawisaa inay u arkaan baqdinta sidii qayb dabiici ah oo ka mid ah horumarka. Mararka qaarkood dhalinyaradu waxay isku xiraan qiimahooda iyo aqoonsigooda guusha keliya. Marka la helo ogolaansho iyo ammaan bulshada ka timaada, taasi ayaa ka dhigta in aysan awood badan u yeelan inay u halgamaan riyooyinkooda haddii aysan helin faallo toogan oo ka timaada dadka kale. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan maanta. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe inoo saar. Haddii ay tahay markii koobaad aad nagu soo biirtay, fadlan la wadaag asxaabtaada muuqaalkan. Muuqaalo tiro badan ayaad ka bogan doontaan.